بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkii iga horreeyay sida uu tilmaamay, waxaan in yar barakaysanayna wax ka mid ah akhlaaqdii xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. nabigeena marka la leeyahay ha laga sheekeeyo, cidda markaa ka sheekaynaysa iyo majliska markaa la fadhiyo ayaa baraka iyo khayr iyo wanaag iyo nuur ka raadinaya, iyo barasho ciddii hore u taqaanana ay u tahay xusuus iyo tadkiro, ciddii markaa aan ku baraarugsanayna barasho ay u noqonayso. ama nabigeena calayhi salaatu wasalaam jaanibkiisa markii la fiiriyo ka sheekayntiisa akhlaaqdiisa baxrun laa saaxila lah weeye, waa bad mool ah weliba aan dhammaad lahayn iyo meel looga baxa midna. أولاً وآخراً وحن إسحسوسنا إلهي سبحانه وتعالى عبسديسا وصيدي إلهي وإنودر دارمي وحيوغوانا أكسنا إلهي وصادري أما نحرك أما حلك الدين تينو بأيضا بأيتهاي. أولاً وآخراً أيضاً اسكدر دارمينا إلهي وحو ليه جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إلهي وحو ليهي والله دباهانتي وحا إذي سو غاري او إذي يمادي رسول وين با إذي يمادي من لا سو ديراي او إله حقيسا laga soo diray, ilaahay agtiisana qiimo weyn ku leh ayaa idin soo gaaray oo idin yimaaday oo idinka mid ah. in rasuul la inoo soo diray waa nimco, ilaahay inuu inoo soo diray waa nimco, inuu nabi maxamed noqdo calayhi salaatu wasalaam akbaru nicmatin weeye, innaga inuu inaga mid yahay basharka binu aadan ahaana waa nicmo weeye. ilaahay wuxuu leeyahay rasuul idinka mid ah oo igu weyn baan idin soo diray min anfusikum. jinni haddii la inoo soo diri lahaa ismaynaan fahmeen, wax tajaanus la yiraahdo inaga dhaxeeya ma jiro. haddii la inoo soo diri lahaa malaa'ig ismaynaan fahmeen. waxa la inoo soo diray rasuul inaga mid ah, ama min anfusikum, kuwa idinkugu fiican idinkugu qaalisan rasuul ka mid ah la inoo soo diray. rasuulkaas waa rasuul ilaahay agtiisa qaali ku ah, waa rasuul ay ku adag tahay wax alla wixii inoo daran adduunya aakhiraba, wax alla wixii inoo daran rasuul ay ku adag tahay weeye. dhibkeennoo dhan baa taabanaya haddeertaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka kaxeeyey dunidan oo rafiiqul aclaa, wax alla wixii ummadiisu ay qabanayso acmaala waa la sii marsiinaya, markaasuu middii fiicinaydna ilaahay uga shukrinahaya, markaasaa middii innaga dhibkeedii lagu soo noqonahayana waa intii dee ummaddiisa ku rumowday wey, cid walba maaha. waa inta diiwaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku jirta oo ummaddiisa ka mida wey. rasuulka waxaa dhibaya wax alla wixii innaga ina dhibaya. waa rasuul aad innaga inoogu dadaal badan, inaynaan habaabin, inaynaan dhumin. nebiga calayhi salaatu wasalaam dhib badan baa ka soo gaadhay inaynaan habaabin oo dhumin, ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u taraxumay ishfaaq, ilaa ilaahay uu sameeyey: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باخع نفسك. إلهي ورسوله كد عليه صلى الله عليه وآله وسلم عد أمدس كمده إن إنسان dhib la kulmeen cadaabka ilaahay inuu san taaban
إني مؤمنين موحدين نقضان وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا إلهي سبحانه وتعالى أدبو دالي أدبو ينوجعلا صلى الله عليه وآله وسلم إذن وقد دال بدونه كدن بيس مجرته qaabku ilaahay inuu wixirayay cidna uu wixiri kartay ma jirto ilaa hadeertan uu inala jooga sunnadiisii baa hadlaysa quraankii baa hadlahaya akhlaaqiyadkiisii iyo nidaamkiisii oo dhan baa ina dhex yaala bil mu'miniina ra'uufur rahiim ilaahay wuxuu ku tilmaamay rasuul turid badan inuu yahay mu'miniinta aad buu ugu turid badaya habdhaqankii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam hatta dagaaladii baa ka warbixisayo markay qoreen kuwa cudamada ay dunidan soo maray kuwa ugu waaweyn oo 100 nin ay ku tilmaameen ruuxa kaliya ee ugu weynanka badan hogaamin umadeed iyo xagga turidda iyo naxariista waxay ku tilmaameen nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilaahay baa ku tilmaamay inuu yahay rasuul muuminiinta ku turid badan una naxariis badan waa tilmaamay ilaahay si gaar ah u leeyahay ilaahay baa ra'uuf ah إلهي لا رحيم نبينا وكتل ما صلى الله عليه وآله وسلم إمام أحمد مسند كي سوح كورنا يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه يري بعثت لأتمم صالح الأخلاق وحال إيسو صاري لإيسو بحيي وحال إيسو دري إن لما يستر كساميو أخلاقيات كمتكو كودي ونكسنا صالح الأخلاق إن لما يسترو ayaa la ii soo bixiyay sidoo kale imaam Maalik muwaxiisa wuxuu ku warinayaa bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq akhlaqiyadka kuwooda wanaagsan anbiyada ilaahay baa soo bilaabay iyaga soo waday nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhamaystir ku sameeyay bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq waxa uu la ii soo bixiyay inaan dhamaystir ku sameeyo akhlaqiyadka روح سيدي سبب وأخلاق ويان إنما الأمم بالأخلاق وطولها أحمد الشوقي ومضوه السيدة ضبنان وأخلاق وي هذه أخلاق هذا اللي وهي مساجد هذا وكتشروا حلي والعبادة وتاجن وصومي صلاة عن مرنا فاروق إن يطاعات كيودن هذه أخلاق هذا بنته وكودا مات واحد سكر دين الإسلام العبادات واحد يسكساريه لبقيبه واحد يسكساريه تعاملي الشعائر بيسكساريه عباداتك الشعائرية waa wax kooban cimriga qofka markii loo fiiriyo xataa shaqada uu qabanayo waa in yar oo kooban weey مثلا salawaadka 5 aan tukanayno markii la fiiriyo 24 saac qadarka kala iimaanaysa hadii tiiba 5 daqiiqo laga dhigo waa 25 daqiiqo weey waxa aad u kooban marka laakiin cibaadaadka tacaamuliga la yiraahdo oo waliba kuwa inay ku ansixeen shacaairiga iyo shartiga u ahi waa akhlaaqiyadkii weey umada inaad kula noolaatid akhlaaq inaad wanaag kula noolaatid hadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad kula noolaatid waliba baa ogtihi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyay saxaabada markuu weydiiyay tadruuna man al-muflis wa ruux soo daacaystay soo cibaadaystay baa nabigu ku tilmaamay mawduuceeni ma ahayn laakiin akhlaaqiyadka ayna la galay ayaa nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ruux daacad badan la yimid laakiin wuxuu soo dhimiyay tacaamuligi basharku soo dhimiyay ilaahay umada isaga samaystay habka uu la dhaqmayna isaga u taala laakiin adiga waxa laga rabaa maxay inaad kula dhaqantid akhlaaqda nabiga calayhi salaatu wasalaam taasa laga rabaa ruuxaasi isagoo taacad badan la yimaaday akhiran waxa dhici karta naarta inuu galo muxuuna ku galayaa wuxuu soo dhumiyay cibaadaadkii tacaamuliga nabigeenu taasu wuxuu leeyahay bu'ithtu li yutammima makarim al-akhlaq waxa uu la ii soo bixiyay akhlaaqda mideeda fiican إن لما يصير كسمايو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحى لقى ورنا يا إمام البخاري وكورنا يا حديث كأنس بن مالك رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وح إلهي أبوره وح يقول روح ذبنابوها روح إلهي خلقه نبي محمد بقى روح بنا أخلاق ذا مركي اللي هذانا لأبيه أخلاق ذوها النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا بوهابي نبيين صلى الله عليه وسلم أخلاق ذا إساقا أقو قرح سنة إساقا أقو وناك سنة إساقا أقو أخلاق فينا نبي بوادينا كويها صلى الله عليه وسلم وإنا كديتا عائشة مركي لويدي نبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق ذي إساء
وحيتري كان خلقه القرآن نبي أخلاق ذي سوحي القرآن كريم كلام الرحمن يا أخلاق ذا النبيين واسكمت بيت نبي وحو تطبيقي منهج ربي إلهي سبحانه وتعالى وأسو ديبي سيدي وأهاب وتطبيقي وقدقمي وعمل فلي أسو قد بي فرينتا مركز وحوها كان قرآنا يمشي على الأرض وحوها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كي إلهي يولغينيا قرآن كي يوسعونيا أيها معنوها محي وحا قرآن كرباب الربي سيدا قرآن كي يهيب النبي ويالي وحا قرآن كربي أيها النبي كربي عليه الصلاة والسلام وكديرانه وحا قرآن كأمري أيها روحا وقو إيمان شهبا أيها روحا وحا قرآن كفري وهري حق اللي ماشيه سايوها وحا قرآنك الديدية هي يا نبي كهري قرآنك ما دام كلام الله ويهي يغضب لغضبه ويرضى لرضاه وحا إلهي عرقليه أي نبي عرقليه صلى الله عليه وسلم سيدا إن بدنا إننا نقمت أن كنت المامنا هاي وبدنا رعوناتك نفسك نفتهن مشاواتك أي نقا أود بديهين نوعا هاي وينقا أود بديهين وبدنا قفكو markay ku yimaadaan waxyaabo isaga rabitaankiisa aan la xariirinin durbadiiba waxa la falgalaya wixii isaga ku jira jirkiisa nabigeenu sidaa ma ahayn waxa ilaahay caragelinayay waxa ilaahay ridihiisa ay u yahay oo ridaha ilaahay lagu helayo lagu gaarayo ayaa nabigana qancinaya raadibu ku ah de nabiguna isagu wuxuu ku tilmaamay iimaanka meesha ugu dambaysan man ahabba lillah wa abghada lillah وأعطى لله ومنع فقد استكمل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام روح مرة الظهر ربيتان كيس إلهي حق يسوي جره وحا قادنا أيه وحا ديد أيه كل ميزان كشرع أوصاره إلهي حق يسوي كفيريه نبي وحا أقر الروح حاسم مؤمن كامل ينوي هاي وأنا مدة هدي أمة دينه أي كتل معنا الله هاي كل جن سيدة هذا أن هاي أمة إسلامية مركي اللي يراهو سيدة هذا اللوية الله أي سنة هاتين دي sida hadda loo yaalo oo de ducfiga uu ku dhacay nooc walba aysan marnaba ahaateen nabigu sallallahu alayhi wa sallam ahsanu naasi khuluqa darajada khuluqa ahadiith ku soo arooraysa dhowr iyo soddon bay culimada qaar kood ku tilmaamaan oo markuu ummadda nabigu ku dhiirigelinayo waxa lagu helaana waa qurbiga nabiga sallallahu alayhi wa sallam jannada in la galaayo bifadlillah إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مقامك إلهي وقاري إلي أسو دواتي ما الخاص ليه وحقالي ويا وحلو هلانا النبي وحكوت المامي محي سلك رسولك ولا بديه صلى الله عليه وسلم أخلاقياتك ولا هجاتي أخلاقياتك ولا صوبيه نبي مركب وحوها مخلوق إلهي أبو ريو دن روحه وأخلاق في عنبها كان خلقه على القرآن يرضى للرضاه أخلاق النبي وحي القرآن كريم waxa quraankaas ilaahi subhanahu wa ta'ala ku sugan sida uu yahay ayaa nabigeenu u yaalay ridihiisa rido gelinayay waxa ilaahay rido gelinaya nabiga rido gelinayay waxa ilaahay aragelinaya lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq nabigu sidiisaba ma ahayn ruux ku tilmaaman xumaan ruux xumaanta iska raadiyana ma ahayn xumaan shaqo kuma lahayn ilaahay baa nazahay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa doortay xumaan ma lahayn xumaanna nabigu iskama sameyn jirin oo iskama raadin jirin iskuma dhigi jirin oo xumaan sameeyo ma ahayn suuqa markuu marayo ma qaylin jirin nabigu aad buu xishood badnaa xayiib u ahaa ruux sirriigta buu ahaa hadalkiisu hoos yahay xishood badan buu ahaa xumii haddii lagu sameeyo walaa yajzi as-sayyi'a bis-sayyi'a xumaan nabigu kuma gudi jirin haddii xumaan loo geysto oo dib loo geysto nabigu alayhi salatu wasalaam dibka dib waxa dareemi kartaan 22 sano nimankii la diridayay markay u yimaadeen nabigu oo tawxiidka ay qaateen ilaahay inuu ku xiro kaliyo ka rabin ilaahay inuu ku xiro ragiisii akhyaarta ahaabay laayeen dacwadii diintii bay hor istaageen 22 sano ka badan bay qaarkood la dagaalamayeen nabigu alayhi salatu wasalaam kuma qiimeyn waxoodii hore hadda waxay ku sugan yihiin oo tawxiidka ilaahay inuu ku xiro kaliyo ka rabin mar hadda ilaahay ku xirnaadeen nabigu waa ka socda alayhi salatu wasalaam waana mid adiga laga rabo ولا يجزي السيئة بالسيئة نبي حمان كما تيرين كما ريبي جيرين ولكن يعفو ويصفح انتو اسكدافو
ayuu haddana nebigu ka jeesan jiray qofka inay xataa xumi xaggiisa uga timaaday lagama dareemi jirin bal waxaa dhici jirtay ruuxa xumidu ay ka timaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam suu u raadi gelinayo ruuxa aan la socon xaaladaasi inuu moodo nebigu inuu ruuxa isagu ku gafay saas baa dhici kartay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaa ammaanay ammaan midii ugu sarreysana ku tilmaamay quraanka kariimka akhlaaqda inuu ka gaaray meesha ugu weyn oo ugu sarreysa de warka aan sheegano dhan waxa isku fuqsanaysa wa innaka la ala khuluqin azim ilaahay baa ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala habka ereyada uu isku saaray ilaahay baa ka warqaba oo nabigiisa u xushay wa innaka la ala khuluqin azim ilaahay wuxuu tilmaamayaa nabigeenu akhlaaqda meeshii ugu sarreysay inuu ka gaaray ammaan ruux la ammaano meeshii ugu dambeysay weeyaan maxaa yeelay akhlaaqdu nicamta ilaahay bixiye midda ugu waaweyn weeyaan nabiga cadiimka ah ilaahay wuxuu ku tilmaamay khuluq cadiim ah inuu ku tilmaaman yahay nabi buu ku yahay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waa wax qaali weey cidii aad jecelayd ilaahay kuu soo diray xabiibkaagii ahaa tilmaamihiisii adiguna iska raaraadi حتى هدي هذا نهاي تشبه سوء كيسي اسكرها رادي ولبا ممثل باوتهاي او امداس اد دحمريسين دعودي رسالتي بعد حنبارسنتها اوغو دعودي ما ان انت ودادهان سو استاغتي محاضريسين فعلكaaga iyo qowlkaagu waxay ka turjumayaan diintaadii iyo nabigaagii bay ka turjumayaan hadii marka akhlaaqiyadkaagaas aad hagaajisid iyo ficilkaaga ummad badan waxa dhici karta aadan hal kalaam u furin oo xataa tawxiidka aan haysan inay ku sahlanto waana sida diinteenu ay ku faaftay diinteen taasay ku faaftay seef kuma faafin akhlaaqiyadkan wanaagsan bay ku faaftay waxa la tilmaamaa akhlaaqda wanaagsani waa weel oo kale taway waliba wi'aa diin weey waa diintaada weelkeedu waa akhlaaqdaada weey diintaada haysatid weelkeedu waa akhlaaqdaada hadii wax kasto fiican lagu sheego weelka aad wadatidna uusan hagaagsanayn waxa dhacaya waxaynu naqaanaa caanaha saafida ah oo dhayda ah hadii weel wax si ka yihiin lagu shubo soo isbedeli mayaan wixii wanaagsana caano fiican bay ahaayeen waxa bedelay waa weelka akhlaaqiyadka fiican ruuxu markuu ku tilmaaman yahay oo akhlaaq wanaagsan leeyahay wixii yar oo uu helo oo diinihi baraka iyo khayr baa Ilaahay u siinayo marka waxa la yiraahdaa al-khuluqul hasan wi'aa'u diin weeyaan waa weelkii diinta weeyaan al-khuluqul hasan waa wi'aa'u diin weeyaan shayga marka hadii qofku uu haysto weel nadiif ah uu haysto hakada sidaas oo kale ta akhlaaqiyadkaagu akhlaaq fiican marka leedahay oo diintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu sheegay khayraadkiina aad weelaysid weel fiican bay kugu dhacayaan waxa la yiraahdaa diinta ahkaamta diinta murtida diinta iyo xukumka diinta lama helo mana muuqato lagumana intifaaco illa akhlaaq fiican ma lama helayo waxa arkaysaa ruux oo hatta diinta macrifo fiican u leh وهذه المعرفة في عنوله لكن مركي الله في سلوكي سي نهجي سي أخلاقيات كيس مركي الله في ريو أي ودك لبا وادي أي كلا هيان لبا ميرد بي كلا مريان مركا إن بدن أو انتفاع إلى هيد وحا روحا كتشراي ما ينتفاعش وحبا كهيل مياه دربدي بقفه وحو فيرنا يا قفك أخلاق دي سو فيرنا هيا وقت قاعد بوكو بي هاي وحان تعالى وقت خطبه وين هيا إن شاء الله وسوكو بدونا إلهي وحو النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هجامين عدل له هجاميو ماشي قصر ريسوي لو انت هدي لقادن لها او ددك umada hogaamisa inta qaadan lahayd hogaamintu nooc ay rabtaa noqoto toban qof waxa uu ahaa ilaa meesha ugu sareysa waxa dhici lahaa nidaamka nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay ku tilmaamahay ilaahay wuxuu leeyahay naxariis anigu adiga aan ku siiyay darteed ilaahay baa nabiga naxariis siiyay isagoo dhan baa raxmad ah wa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin rahmadu aha ilaahay baa ku tilmaamay rahma ayaa nabigeenu ahaa ilaahay wuxuu leeyahay naxariis aniga xaggayga ka ahaatay darteed baad linta lahum taas dadka waxa ugu noqotay ruux dabacsan oo u jilicsan baad ugu noqotay nabigeenu wuxuu ahaa deewa tilmaamaya wuxuu leeyahay al-mu'minu layyinun hayyin wa mid adiga laga rabo
isaguna ina amray qofka muuminka waa qof jilicsan oo dabacsan amaakinta laga raba adeegeeda meelaheeda laakiin almu'minu layyinun hayyin hatta ahlu jannuhu layyin hayyin weeyaan ruuxa ahlu jannaha waa layyin hayyin weeyaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay fabima rahmatin min allahi linta lahu ilaahay raxmadda uu nabiga siiyey ayuu wuxuu u noqday ummadda mid u layliyan u hoggaansan u dabacsan u nugul rabbi wuxuu leeyahay walow kunta faddan ghaliida alqalbi haddaad ahaan lahayd mid qallafsan ka kan qalbi adag lan faddu min xawlika cidi kulama noolaateen cidi kulama joogteen ragga nabiga ag dhowrnaa abubakar iyo cumar yaa lahaa ee nabiga hareerihiisa taagnaa saxaabadii bay mathalayaane ilaahay baa wuxuu leeyahay walow kunta faddan ghaliida alqalbi lan faddu min xawlika way kaa tegi lahaayeen ilaahay baa ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala dee ruux kastoo la rabo ummadda hadda inuu wax u noqdo u hogaamiyo mas-uuliyad qaado raxmaddaasaa la rabaa inuu ku tilmaaman yahay qabowgaa iyo jileeca inuu ku tilmaaman yahay nabigeenu sala allahu calayhi waaalihi wasalam akhlaaqu lqur'aani alkariim saan sheegnay ayuu nebigu ka dabeecad dhigtay markaasay saamaysay markaasay awaamirtiisoo dhan ka muuqanaysay markaasuu wax alla wuxuu reebayo ka muuqanaysay yantahi can nawaahiihi ya'tamir biawaamirihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanku wuxuu farayu fartoonaanaya wuxuu ka reebayo rabtoonaanaya ربما أنه إن آخرنا صابلون دمينا صابلون دمينا أنا يا قرآن كنا لبا شيء أنك لنا وهي قرآن كوا أصلك هيوي وكي صحابة بدلي وكي يجوا كتل مامن ديجان كي مركها يكون على عين دون ذا أوديه مركها كتشري ولدي فارسيين تي رومانيين تي أيجا مركي لوفير ده عربه سكرميه حول دقتايو سحرها كنا البيهاين أنا حبك لوجين حب الله سبحانه وحي واركين ده حضارة iyaga isla markiiba waxay noqdeen markay akhlaaqda tadbiiqiyeen iyo manhajkii quraaniga ahaa waxay ku tilmaanaadeen maxay inay noqdaan ummadda ugu sarreysa dunida intii kaleetana ay noqotay waa mid annaguna haddaan ku tilmaanaan lahayn sida aan noqon lahayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam imaam busiri abu cabdil wuxuu ku tilmaamay fahuwa alladii tamma macnaahu wa suuratuhu ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم إلهي بعد ما يستري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معنى أهان يذات أهان صورة أهان إلهي با كملي لنا أول باب إلهي بعد ما يستري تبدأنا ثم اصطفاه إلهي با حشي ربي ما أنك أنتي سكن كحشي مركو لما يسترك سميي منزه عن شريك في محاسنه عدل لو ذاكته وناقة إلهي نبينا وكتل ما مله منزه عدل لو ذاكته والله له ما جرت إذا لص من ما جرت فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا وناقة مركي لي هذا جوهرته نبي عليه الصلاة والسلام إلهي السيئي مد قيب سما يسمى ما هم مد قيب سما يسمى إذا الله ما جرته نبي قال نصيد عصوها وحين إلهي برينا سبحانه وتعالى أخلاق ذي النبي عليه الصلاة والسلام أن قال إلهي إنه من السيئو kuwa ku daydana ilaahay inuu inaga yeelo manhajkiisa iyo diintiisa kuwa ku amal falana ilaahay inaga yeelo nabiga marka la leeyahay laga sheekeeyo akhlaaqiyadkiisa iyo tadxiyadii diintan uu soo sameeyay ha laga sheekeeyo marka la leeyahay waxa way inagay dan inoo tahay inaynu baranno oo ogaano sidii uu ahaa oo marka nolosheena wax ka bedelno aysan noqon sheeko majlis inta lagu soo hadal qaaday ama joornaan la akhriyay laga tagay laakiin wax suluugeena iyo akhlaaqiyadkeena iyo dhaqankeena bulshada muslim iyo gaalaba ka muuqata mid ku jecel iyo mid aan ku jecelayn ba ka muuqata ruux walba ina kula dhaqantid marka waxa noqonaysa ruux muhammadi ah ba noqonaysa hada wabillahi tawfiq wa jazakumullahu anna khayran